رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. waxaan ku horeyn doonaa gundeen gulubiga aan ku dambeyn doona su'aalaha daawadan doona insha Allah ilaahay su'aasha koobaad waxay oranaysaa guddiga cadaaladda waxaa ka mid ah ba gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ta gudoomiye ku-xigeenka cadaaladda ja wasiirka cadaaladda ha oo ba iyo ta qaybku idin bilowday والله مقلع سما وحرف كبا قدومية هيدا شغالة حرف كبا بالمدير قدرنا وهي سؤال جوابتي رصاصي صح كطهي وأنا أقول استنصح واحد لو قد بدرنا سؤال شحتاء وحنا يلا دورة جروبي سؤال شحتاء وحنا ورنا xilka qaadista garsoorayaasha maxkamadaha hoose waxa awood u leh ba wasiirka cadaaladda ta wasiir ku-xigeenka cadaaladda ja guddida cadaaladda ha dhammaan waqtigu idin bilaabmay. bismillahi raxmaani raxiim su-aasha haddii aan isku dayo xilka qaadista garsoorayaasha maxkamadda hoose waxa awood u leh guddida cadaaladda. su-aashu saasay sax ku tahay saxsee su-aasha xigtaa waxay noqonaysaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka sheegaya maxkamadda ciidamada iyo xeer ilaalintoodu waa ba boqol qodobka boqol iyo laba ta qodobka boqol iyo saddex ja qodobka boqolaad xa qodobka boqol iyo afar qodobka boqolaad xa qodobka boqol iyo afar. su-aasha jawaabteedaynu eegi doonaa boqol iyo afar saasay sax ku tahay waayahay su-aasha xigtaa ayaynu gudbi doonaa oo su-aasha afraada waxaana yeelan doona gurubiye su-aasha afraad waxay odhanaysaa dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka sheegaya mabaadi'da ciidanka qaranku waa ba qodobka boqol iyo labaatan ta qodobka boqol iyo saddex iyo labaatan ja qodobka boqol iyo laba iyo labaatan ha qodobka boqol iyo afar iyo labaatan taymku idin bilaabay. jawaabta su-aasheeda haddii aan isku dayo waa boqol iyo afar iyo labaatan oo noqonaysa xa boqol iyo afar iyo labaatan waxay noqonaysaa aanu wadaagno su-aasha jawaabteeda su-aasha jawaabteedu sidaasay qalad ku tahay. su-aasha xigtaa waxay odhanaysaa qofka loo dooranayo xubinnimada golaha guurtida da'diisu waa inaanay ka yaraan ba 40 sanno ta 35 sanno ja 50 sanno ha oo 45 sanno oo idin bilaabay waqtiga. isku dayo su-aasha jawaabteeda waa xa oo ah 45 sano waayay saasan wada eegi doonaa su-aasha jawaabteeda eegi doonaa sidaas ay sax ku tahay. su-aasha xigtaynu u gudbi doonaa su-aasha xigtaa waxay odhanaysaa waa su-aasha lixaad qofka u istaagaya xubinnimada golaha wakiilada waa in aanay da'diisu ka yaraan ba 30 sanno ta 45 sanno ja 35 sanno ha 40 sanno waqtigu idin bilaabay. su-aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa inja oo ah 35 sannadood ja oo ah 35 sanno aynu eegi doonaa sidaas ayay sax ku tahay. su-aasha toddobaad baynu u gudbi doonaa su-aasha toddobaad waxay odhanaysaa xeer ilaalinta guud ee qaranku waxay ka kooban tahay ba
xeer ilaaliyaha guud iyo ku-xigeenadiisa ta garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaha guud ja xeer ilaaliyaha guud xa dhammaan wuu idin bilaabay waqti su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa ba waa ba oo xeer ilaaliyaha guud iyo ku-xigeenadiisa saasay su-aasha jawaabteedu sax ku tahay su-aasha xigtaynu u gudbi doonnaa waa su-aasha sideedaad su-aasha sideedaad waxay odhanaysaa gurbi baa iskale su-aasha sideedaad waxay odhanaysaa maxkamadaha hoose ee dalku waa ba maxkamadda rafcaanka maxkamadaha rafcaanka ah ee gobollada ta maxkamadaha gobollada iyo degmooyinka ja midna xa ba iyo ta waa idin bilaabay waxaad u baahan tahay aynu eegi doonnaa sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha sagaalaad baynu gudbi doonnaa group a baa iskale su-aasha sagaalaad su-aasha sagaalaad waxay odhanaysaa sheeg gobolka ay ka tirsan tahay degmada laasa surad ba gobolka saaxil ta sanaag ja sool xa awdal بسم الله الرحمن الرحيم سؤال جوابتي اسku dayo waa ta gobolka Sanaag su-aasha jawaabteedu sidaas ayay sax ku tahay waayahay su-aasha xigtaynu u gudbi doonnaa waa su-aasha tobnaad su-aasha tobnaad waxay odhanaysaa sheeg gobolka ay ka tirsan tahay degmada fiqi fuliye ba waa saaxil ta waa sool ja waa sanaag xa waa awdal waqtigu idin bilaabay بسم الله سؤال شاطر اسكو دايو وجاء او gobolka Sanaag waynu eegi doonaa ja oo gobolka Sanaaga sidaas ayay sax ku tahay group kasta wuxuu lahaa 5 su'aalood 5 su'aalood wuxuu ka gartay iyo wuxuu ka garan waayay gudida garsoorka ay noo sheegi doontaa bismillahir rahmaanir rahiim ilaahay waa mahadle marka hore marka labaad waxaan bogaadinayaa labadan kooxood ee saaka tartanku dhex maray kooxda tayo iyo kooxda wehelka dhalinyarada si fiican ayaa u soo diyaar galowdeen kalsooni iyo dhiiranaanna waa muujiseen aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaa kadib marka la tartamo qolun baa yara horeysa laakiin labadiina kooxoodba si fiican oo dadaal ka muuqdo ayaa muujiseen waana guulaysateen labadiinuba waxa ku kala horeysaan waa dhibic kaliya hal dhibic baa ku kala horeysaan kooxda wehelka dhalinyaradu waxay haystaan 4 dhibcood kooxda tayana waxay haystaan 5 dhibcood